wafdi ballaaran oo hogaaminayo Muuse Biixi Cabdi hogaamiyaha xisbiga talada haya kulmiye ayaa si xoogan loogu soo dhaweeyay gobolka Sool. Soo dhaweynta Muuse Biixi Cabdi waxaa ka qayb qaatay boqolaal qof oo ruuxayay calanka kulmiye maamulka gobolka iyo kan degmada. Muuse Biixi Cabdi waxa uu socdaal ku maray deegaanada Guumeys iyo Goori Ari Cadeeye Tuulo Samakaaba. waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo xukuumadda dawladda Soomaaliland soo dhawaada ari degmadan Ari Cadeeye gobolka Sool ku soo dhawaada oo aad gudoomiye iyo xukuumad ba u tihiin nahay soo dhawaada ku soo dhawaada gobolka Sool oo aad saaka soo gasheen ilaa iyo haddana aynu ku sii soconno magaalada madaxdiisa Laascaanood degmada Ari Cadeeye aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaynaa. Muuse Biixi waqtigii abaartii waa ninkii Sool xaysimo xudur hawd waa ninkii inta marayay markii boorku marayay wadanka maanta barwaaqada leeyahay way xusbiyadu wada socdaan laakiin Muuse ilaa xaysimo xagiisa ku tagay waynu dareensanaa goobtan Ari Cadeeye waxaan maanta ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha mustaqbalka dhow ee jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi dadkan idin soo dhaweeyay maanta waxay u farabadan yihiin dadka deegaamada qaxootiga ku ah. waxaynu soo dhaweynaynaa wafdiga qiimaha leh ee uu hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga kulmiyaha musharax xukuumadda reer Ari Cadeeye awalba taageerada kulmiye waa lagu yaqaanay halkeedii bay joogtaa way ka sii korodhay Soomaaliha aad bay uga sii korodhay aad bay way muuqataa maxaa ka sii kordhiyay waxa ka sii kordhiyay waxqabadka iyo horumarka iyo sida xukuumadda iyo xisbigu degmadan ay wax uga qabteen aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidaad ilaa maanta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا mahadnaqayna gobolka Sool degmada Laascaanood dadweynaheeda dhammaan isu soo haray rag iyo dumar isu soo baxay rag iyo dumar rariya carruur ee soo dhaweynteeda ilaa saacadda duurka u taagnaa ee ilaa xalay soo jeeday ee magaalada dhowr kiiloomitir ka soo baxay ee haddana magaalada dhexdeeda lagu soo dhaweeyey lagu soo wareejiyey aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa aad iyo aad baan mar labaad idinka mahadnaqaynaa waa mahadsantihiin waa waqti kulul waxaan u kacay kelmadda mahadnaqa ah waa idinla joognaa waa iswaraysan doonaa duqayda iyo waayeelka iyo qorweynta magaalada waa isu helinaa waqti dhalinyarada waa isu heli doonaa xisbi ahaan garabka haweenka waa isu heli doonaa waqti garabka dhalinyarada waa isu heli doonaa waa kala boganaynaa waa waqti kulul aad baa ugu mahadsantihiin soo dhaweynta mar labaad baan idin mahadnaqaynaa intaasaan ku soo dhamaysanayna maanta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين أما بعد sida aad arki doontaan ama aad media ka daawan doontaan waxaan maanta ku soo dhaweynay gobolka Sool caasimadiisa magaalada Laascaanood haddaanay maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo taageerayaasha baaxadda leh xisbiga kulmiye gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi أنا مشرح مدحوينها حسبك يوفت بلاد وهجامين وقصة كعتمي عاصمة هرجيسة على طول وحوي إنه كبريو أما وكوعي جليو شعبينها قبل كصولي السناق إنه قاطان كاركا دور الشرع وأنت جبريت سمالان سنة بتجليه أيه كسر جارين سوى عن أباحل والأرك دونتان أيه جول كله كسر دويه isagoo ugu dambeyntii u soo gudbay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana socdaalka wasiirka ku weelinayay qaar ka tirsan golaha wasiirada Laan Xamsi Xaaji Maxamuud Raadiye RTN TV Laascaanood.